kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Soomaaliya ay heshiis shidaal oo ku kacaya 7 milyan oo dollar la gashay shirkad lagu magacaabo Coastline oo Mareykan ah. waxay la yaab ku noqotay shacabka Soomaaliya maadaama oo ay xukuumadda Soomaaliya qarisay heshiiskaasi. haddaba sidee lagu ogaaday ama uu ku soo shacbaxay in Soomaaliya ay heshiis la gashay shirkadaasi? sida ay xoguhu sheegayaan waxa lagu galay magaalada London ee waddanka Ingiriiska. shirkadda Coastline Exploration Ltd ayaa markii ugu horeysay magaalada Houston ee dalka Mareykanka ku shaacisay in ay heshiis la gashay Soomaaliya. markii warkaasi uu baraha bulshada ku baahay 4 saacadood kadib ayuu wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed bartiisa Twitterka ku sheegay arrintaasi, isagoo oo shacabka Soomaaliya ku wargeliyay in uu 7 heshiis la galay shirkadaasi. wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyay inay la saxiixdeen shirkadda Coastline Exploration Ltd 7 xidhmo oo shidaal ah, isagoo oo sheegay in uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku garabsiiyay heshiiskaasi oo uu la ogaa. inkasta oo ay xukuumaddu hore ugu dhawaaqday in aan wax heshiis ah la geli karin inta lagu jiro xilligan kala guurka ah, sida ay qabaan siyaasiyiinta arrintan ka falceliyay, waxaa muuqata qorshe dhaqaale loogu raadinayo ololaha dib u doorashada madaxweynaha hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. markii ay soo shacbaxday arrintani oo u muuqatay mid la qariyay, madaxweyne Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray gebi ahaanba meesha ka saaray in uu wax ka ogaa heshiiskaasi, isagoo oo ka digay in ay dhaawici karto sumcadda qaranka Soomaaliya iyo hay'adihiisa. madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay cadaynaysaa in heshiiska uu saxeexay wasiirka batroolka iyo macdanta uusan wax wada tashi ah kala yeelanin madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu yidhi bayaanka, iyada oo la tix raacaya wareegtadii uu madaxweynuhu soo saaray 7 Agoosto 2021, taasi oo lagu joojiyay inaan la geli karin wax heshiis ah xilligan lagu jiro doorashooyinka. waxaan halkan ka cadaynaynaa in uusan dhaqangal ahayn heshiiska uu haatan soo saxeexay wasiirka batroolku. madaxweynuhu wuxuu mar kale farayaa dhammaan hay'adaha dawladda inay ka fogaadaan xilligan xasaasiga ah in hantida dadweynaha looga faa'iideysto si aan u adeegaynin danta guud, qof walbana lagula xisaabtami doono ku takrifalka hantida qaranka ayaa lagu yidhi bayaankaasi. dhanka kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa isaguna dhankiisa si cadhale uga jawaabay heshiiska wasiirku la galay shirkadaasi. qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu shaaciyay in heshiiska ay gashay wasaaradda batroolku uu waxba kama jiraan yahay, isagoo oo ku hanjabay in uu tallaabo ka qaadi doono. heshiiska la sheegay in wasiirka batroolku uu saxeexay ee la xidhiidha arrimaha shidaalka Soomaaliya waa mid sharci darro ah oo aan loo marin waddo sharci ah, sidaas darteed waa waxba kama jiraan ayaa lagu yidhi bayaanka Rooble. ra'iisul wasaaraha ayaa qaadi doona tallaabooyin sharci oo lagaga jawaabaya falkaasi xadgudubka ku ah hantida qaranka iyo dhaxalka jiilaalka soo socda ayaa lagu yidhi, si loo ilaaliyo ammaanka ummadda Soomaaliyeed. shirkadda ay heshiiska u saxeexday wasaaradda batroolka Soomaaliya ee Coastline Exploration Limited oo ah shirkad Mareykan ah ayaa shalay shaacisay in wasaaradda batroolka Soomaaliya ay la gashay 7 heshiis oo wax soo saar wadaag ah. Richard Anderson oo ah madaxa fulinta xeebaha ee shirkadda Coastline oo faahfaahiyay heshiiska ay la galeen wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa yidhi, Soomaaliya waxaa ku yaala ceelal dihin oo aad u badan, kuwaasi oo aan weli la sahamin. waxaa sharaf iyo farxad noo ah in aan ka qayb noqono horumarinteeda mustaqbalka. wuxuu intaasi ku daray, dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda shidaalka ayaa waqti iyo juhdi badan ku bixiyay sidii dalku uu u heli lahaa kaabayaal sharci iyo maamul oo ku habboon in lagu taageero baadhista shidaalka iyo gaasta, iyadoo oo la meel marinayo sharciga shidaalka, ansixinta heshiiska dakhli qaybsiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah, iyo in la dhiso hay'ad batrool Soomaaliyeed si ay taageero joogto ah ugu bixiso tabaca la filayo, ayuu yidhi madaxa hay'adda Coastline. Yuusuf Garaad oo hore u ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa arrintan ku tilmaamay khiyaamo qaran, isagoo oo sheegay in aanay ummadda Soomaaliyeed ku filayn heshiis burin, balse loo baahan yahay in tallaabo laga qaado ciddii qaranka dembiga ka gashay. Yuusuf Garaad ayaa qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray ku yidhi, maadaama la ii sheegay in heshiiska lagu galay London, diblomaasiyiinta Soomaaliya ka wakiilka ah ee London waan ka waayay wax cadeymo ah xataa joogitaanka wasiirka ee London. heshiis batrool oo aan madaxweynuhu ogeyn, ra'iisul wasaaruhuna ku tilmaamay sharci darro. haddii UK lagu saxeexay oo safaaradda Soomaaliya ee London aanay waxba ka ogeyn, waa sax in la buriyo ayuu yidhi Yuusuf Garaad, laakiin buriniguma filna, xataa khiyaamo qaran ayaa suurtagal noqon karta. intaa ka sokow, dhaawac ayay arrintani ku tahay dowladnimada Soomaaliya iyo in magaca dowladda heshiis aan la isla ogeyn lagu galo maalmo gudahoodna laga baxo. aragtideeda baadhitaan buuxa oo bannaanka keenay heshiiska, cidda saxeexday, cidda la ogeyd
iyo haddii laga lahaa ujeedooyin siyaasadeed ama dana kale haddii ay caddaato dembiga laga galay shacabka Soomaaliyeed markaa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado cid kasta oo ku lug leh waa lama huraan ayuu yidhi Yuusuf Garaad. dhanka kale siyaasiyiinta ka falceliya waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Macalin Fiqi waxaana uu leeyahay waa fadeexa kale oo soo wajahday filla Soomaaliya iyo Farmaajo maadaama wasiirkiisa badroolka uu sheegay in Farmaajo la ogaa saxeexa heshiiska xidhmooyinka shidaalka ah. heshiiska lala dhuumanayay ee kooxaha kheyraadka dalku uu xaraashka u yahay ay sida qarsoodiga ah ku saxeexeen waxba kama jiraan ayaa laga soo qaaday. badroolka Soomaaliya wuxuu u dhaxeeyaa ummadda Soomaaliyeed waxaana muuqata in koox gaar ah ay saxeexiisa macaash ku raadinayaan. ra'iisul wasaaruhu waa ku mahadsan yahay tallaabada uu ku joojiyey boobka kheyraadka dalka ayuu yidhi. dhanka kale musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa yidhi waa boob iyo khiyaano qaran in xilli kala guur ah dalka dibaddiisa lagula dhuunto saxeexa heshiis shidaal oo 25 sano soconaya kuna kacaya bilaayiin dollar. hantidii qaranka iyo dhaxalkii ummadda ayaa la dhaafsaday 16 milyan oo dollar ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Farmaajo 7 bishii 8 ayuu soo saaray qoraal uu ku diidayo in heshiis la saxeexi karo xilliga kala guurka ah waxaase u caddaatay in uusan rajo ka lahayn doorashada oo uu go'aansaday in uu dalka boobo. ra'iisul wasaare Roble waa in uu dalka ka badbaadiyo boobka hantida qaranka tallaabana ka qaado wasiirka hantida qaranka lunsaday ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. senator Ilyas Cali Xasan ayaa waxa uu leeyahay intii doorashada lagu mashquulsanaa shidaalkii waa lagu baxay dawlad waqtigeedii dhammaaday heshiis noocan oo kale ah ma geli kartaa soo uma eka in sababta xilligan kala guurka ah loogu soo aadiyey iibka shidaalka mid ujeedooyin badan leh lacagta shidaalka lagu iibiyey soo uma eka mid la rabo in lagu isticmaalo doorashada ayuu yidhi senator Ilyas Cali Xasan.